22 موضوع لباتني لبو about ku saabsan the economy dhaqaalaha of the country ee wadanka. Every country wadan walba in the world dunida dhexdeeda has waxa uu leeyahay economic sources ee la dhaqaalo or system ama hab dhaqaale. For instance, tusaale ahaan the economy dhaqaalaha of Japan ee Japan depends on waxa uu ku tiirsan yahay ama uu ku xiran yahay industries warshado, since maadaama it wadankaasi ee Japan uu yahay one of mid kamida the industrial and developed countries wadamada ku hormaray warshadaha. The economy dhaqaalaha of Arab countries wadamada Carabta mainly si muhiima depends on waxa ay ku tiirsan yihiin ama waxa uu ku tiirsan yahay the oil shidaalka, which shidaalkaasoo they export iyagu ay dhoofiyaan and obtain ayna ka helaan much budget miisaaniyad badan from it shidaalka xaggii. In our country wadankeena dhexdii livestock xoolaha ariga geela iyo looda livestock la isku dhahaa waa xoolaha saddexda nooc ee aan dhaqano. Fishing kalluumaysiga and farming beeresiga waxay ahaayeen all dhamaan the cornerstone udub dhaxaadka of our economy dhaqaalaheena. The country wadanka used to get wuxuu ka heli jiray or obtain ama uu ka heli jiray income dakhli from them iyaga xaggooda. Get obtain waa isku micno. In recount years sanadaha dhow recount dhowr micno leedahay hadda waxay ugu jirtaa recent oo kale oo dhow ah. waxaa kaloo isticmaalaa gacan haadin, waxaa kaloo isticmaalaa dib u sheegid, waxaa kaloo isticmaalaa dib u tirin. marka recount years sanadaha dhow hadda ku sharxaynaa. People that who used to rise soo saari jiray animals xayawaano came to the towns waxay yimaadeen magaalooyinka. Cultivation falida of farmers ee beeraha was stopped waa la joojiyay falidaasi. So sida aawadeed our economy dhaqaalaheena has fallen down dhulka ayuu ku dhacay. On the other hand dhinaca kale our wild animals xayawaankeeni duurjooga ahaa used to attract wuxuu soo jiidan jiray many tourists dalxiisayaal badan because maxaa yeelay they iyagu waxay ahaayeen good kuwa u wanaagsan for tourism dalxiiska. bal laakiinse they iyaga waa hunted waxaa loo ugaarsaday badly si xun until ilaa they died out ay ka zuuleen. ereyga die waa dhimasho, die out markay noqoto waa zuulin ama baabi'in. Ultimately ugu dambeyntii if we want haddii aanu doonayno to improve inaan sare u qaadno our economy dhaqaalaheena we must not neglect waa inaan iska dhaga tirin and eradicate ciribtirin our wild animals xayawaankeeni duurjooga ahaa. Instead halka we should raise them iyaga aan usoo sare qaadi lahayn oo soo kobcin lahayn halka iyaga aan sare aga qaadi lahayn. Instead halka we should raise them iyaga aanu tahay inaan sare u qaadno oo kor u kobcino markaa.